magaala xeebeedka taariikhiga ah ee Laasqoray ayaa waxaa soo gaaray wafdi ka socday Soomaaliland kaasoo hogaaminayay gudoomiyaha gobolka waxaana weheliyay qaar kamid ah saraakiisha uu kamid yahay taliyaha Gure Cismaan Saalax waxaana safarkan gudoomiyuhu ku soo gaaray Laasqoray mid uu doonayay inuu raaligelin ka bixiyo dhacdadii dhacday kowdii bisha 6 taasoo ahayd markii ay maraakiibtu ku soo socdeen Laasqoray dagaal lagu soo qaaday kaasoo ay ku soo qaadeen ciidamada Mariniska Soomaaliland waxaana barasaabka gobolku markii uu soo gaaray degmada Laasqoray la kulmay madaxa shirkadda Maakh Resource Company Engineer Faisal Xawar daba waxaa barasaabku booqday maraakiibta ku sugan xeebta Laasqoray waxaana ku soo dhaweeyay Captain Fasilis oo kabtanka guud ee maraakiibta ku sugan xeebaha Laasqoray waxaana barasaabku raaligelin ka bixinayay oo ka raaligelinaya kabtanka dagaalkii lagu soo qaaday maraakiibta kowdii bisha 6 waxaana isla markaa madasha ka hadlay Engineer Faisal Xawar oo Yes. These gentlemen are from this region and they are the authority from Somaliland. Our friends who showed us, and we will normalize whatever happened. We will have an apology, talking together and explaining what has happened. I will introduce you Abdul Hakim and Ahmed. He is the governor. He is the governor of this region from Somaliland. We have ministers in even Somaliland. Yes. And we have officers like these guys, and there's serious dialogue talking on. They have already apologized on the TVs and on the radios, but we will go one step further. Mudane gudoomiye dadka mandaqadan jira iyaga tashaday inay dhulkooda hormariyaan dekada Laasqoray 30 sano ayaanu daba taagnay sidaad la socoto xawilaado aad iyo aad farbadan waan sameynay xawilaadani waa kuwii ugu dambeeyay ee mid dhaliyay kowdii June mudane gudoomiye waxaanu soo weeraray ciidanka Somaliland oo laba taag wata dariskoodii iyo calankoodii wata ayna taagaga ku qoran yihiin magaca Mariniska Somaliland markab international kala IMO commercial ayay weerareen ilaa iyo maanta oo 22kii June wax jawaabana kama hayno wax raaligelin kama hayno dekadii oo adoonaysid in ummadda iyo dalka u qabatid aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa dibtii dhacday la geystay oo loo geystay gaadiidkii meesha badda marayay oo u socday hawlgalka dekada aad iyo aad baan uga xunnahay dibtii la geystay apologiesna waa ka bixinaynaa weliba aanoo ku hadlaya magaca madaxweynaha barasaabkiina gobolka sitana calankii Soomaaliya aad iyo aad baan arrintaa uga xunnahay una apologies uga bixinayaa dibtii la soo gaadhay aad iyo aad uga xunnahay dhammaantayna aan uga xunnahay. And I really do welcome you, gentlemen, for your great effort of coming here to do humanitarian and good project for this city. We are regretful and we are apologizing of the mistake that has happened caused by our Somaliland army. I represent the president, I'm the governor, and I report directly to the president of Somaliland. And we have apologized in the past. We are apologizing now. And we will apologize in writing as well. You have come to do a great job. We are with you. There is a minor misunderstanding and a wrong move, and that will be apologized and in writing. And let me finish, then I'll give it for. intaas kadib ayaa waxaa ka hadlay madashan taliye Gure Cismaan Saalax iyo taliye Tusbaxle oo kamid ah saraakiisha ciidamada Soomaaliland kuwaas oo ballan qaaday inay ka qaab qaadan doonaan horumarka ka socda Laasqoray iyo mashruuca dhisitaanka dekada Laasqoray waxaana taliye Gure iyo taliye Tusbaxle ballan qaadeen inay mushaharkooda 20% u goyn doonaan horumarka ka socda Laasqoray isku soo wada duubo waxaa magaalada taariikhiga ah ee Laasqoray soo gaaray bariyahan waftiyo kala duwan kuwaas oo dhammaantood taageeriyay dhisitaanka dekada Laasqoray waxaa Engineer Faisal Xawar tusay xabadihii lala dhacay markabka kowdii bisha July markii ay maraakiibtu ku soo socdeen Laasqoray.
isaga xabado ayaa dacwalba ka galay halka xaggan hoose xaggan mashiinkan isagu waa ku daayay markabkan isaga xabadaha waxay kala dhaceen xabadaha waaweyn bay kala dhaceen muraayadaha iyaga ugu horan bedelay aan ka helay qaarna dabadan oo ka keenay qaarna halkaan ka helay oo waana la xannay haddaad ku wareegto maraakiibta oo dhan dacwalba xabada kaga taala runtiina waa wax dee markaad subaxii aragto iyagana caqligood ka bixisaan caqli ay ka bixi mayso intaan aragno dhaawac ku yaalo wax raalli gelinayo wax magaranaysa kamay soo noqonin in waqadiyada wala taagan mar haddii qalabkeeda la rasaasayo isaa loo burburiyey hantida burburiyey waa wax idinka idin yeelay la tahay waxaad ka qabanaysaan laakiin anagu waagu markuu baryoon aragno wax kastaan habeenkan ku seexanne marka waagu baryo dawarka abeesadii tirigudintii waaga noogu baryo ma garatay maamulka Soomaaliland oo raaligelin ka bixiyay ayaa arrintan ahayd Cabdisaaq Cali Bilbil telefishinka caalamiga ee Somali Channel degmada Laas Qoray